عقاشة iyo salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan gudaha magaalada Gabiley ayaa maanta shir jirayd oo ay ku qabteen magaalada Gabiley waxa ay gaashaanka ku dhufteen go'aankii ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay kaga dhawaaqeen golaha wada tashiga iyo toosinta maamulka qaran ee la magac baxay badbaado qaran waxayna cuqaashan iyo madax dhaqmeedkani oo shir jirayd ku qabtay حتى هوتيل أسكر مقالة جبلي أيها وحا يكو شيغين إنا أنا عقون سنين ولها سيلا شيغي وحينا حكومة كتها غيرين قوانكي أي كقادتي سياسيين تاسي يقو اسمك عابي وقاشا إيو مدح دقميتك أو أريماها سيكا هدليا أيها وحا هذا اللدو دي كميدها أنا قوام مدح دقميت reer gabiley وكم مدهي وقاشا قبل كجبلي وحان لاهي وقتي هيا kasoo kacay reer hebelada way laga dhamaatay wanaga xil waayo adeersaad xil u helayso oo shaqaasa dawladda kulba jirta xil kana wada qaban mayno inama gaadhayo hadaynu nahay reer Soomaaliland mutaalimkeena iyo siyaasigeena iyo keena wax garanaya xil aan wada qabanno kuraasadu ma aha wax Soomaaliland gaadhay maalmeetii loo qadra qabanaysa intaana aan ku kalsoonaano ragga sheegtay ee yiri waxaanu nahay golaha wada tashiga iyo badbaadada qaranka ayaan doonaynaa inaan ka jawaabno arrinkaas runaantii wax la yaab leh ayuu nagu noqday inaan maqalno ereyga waayo waxaanu garan weynay wax la badbaadinayo ee jarka ka sii dhacaya iyo wax laga wada tashanayo intaanu garan weynay wada tashiga iyo badbaadada waxaan leeyahay golahaasi waa golo sharci darro maanta la looma baahna innagoo maanta halka aynu marano aynu arkano oo maanta aynu wada hadal kula jirno Soomaaliya oo aan maanta qarannimadeennii aan doonayno in ismuujino inaan xagaldaac muujino oo kolba rag maaragtay danaysanaya ay doonaan inay ku guuraan shacabka reer Soomaaliland runaantii arrinkan ka soo horjeednaa qolada gola afraad iyaan samaysanay tiri ee aan warka ku maqalay ama jaraa'idada ku aragnay magacyadooda kolkaan arkay waa nimankii madaxweynenimada doonay ee inay dalka madaxweyne u noqdaan doonay ee xusbiyada samaystay ururada samaystay kadib markii ururkii oo xusbinimo u soo gudbi waayay gola afraad inuu ninkii madaxweynaha isku sharaxay inuu gola afraad oo dastuurka Soomaaliland ka soo horjeeda yaan samaynayaa horta waa nasiib darta waxaan idin leenahay imikana waa dawdihiin imikana madaxdii dalka u tartamaysay baa tihiin ka noqda arrinka dhinaca kalena mid ka mid ah aasaasiyaashii ururkii SNM oo ay wehelinayaan aqoonyahan iyo oday dhaqmeed ka soo jeeda magaalada Gabiley ayaa shir jirayd oo ay qabteen jawaab kulul kaga bixiyay golaha ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland golahaasi oo ay ugu magac dareen golaha wada tashiga iyo toosinta qaranka iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen shir loo soo halgamay dhiig badan ku soo baxay nafo badan baa ku dhintay aqoon badan ayaa maanta iyo dad badan laafoobay iyadoo ku saayay oo maartay si lagu xoreeyay iyo dhibtii la soo maray iyo wadadii la soo maray iyo loogi haddana maalin walba inuu meel ka daba qaybiyo ma madaxweynaha maanta shoogaa la doortay cid aan la dooran inay ka hadasho meelaha maaha waa qalad weyn cidii halka joojin weyna anagu waxaan leenahay si cad baan la hadlaynaa waxaan uga jawaabi doonaa sida cadow wadankan uga ilaalinayno ayaan uga jawaabi doonaa waayo waxa weeyaan dhigayga waa ku maqan lafahayaga waa ku maqan in maalin walba inay ku dugto oo yiraahdo siyaasada oo waxba ka hadlaya oo waxba oranaya oo saas ma ogolaanayna taa wadankan ma ogolaanayno wadanka nabadgelyo ku jooga waxa leeyahay nabadgelyada loo daayo inta doorashada dambe ha sugto qoladan maanta dhaweyd ka dabaystaaday baabuurka yare waxaan leenahay nimankaasi way ka dhacsan yihiin waxaanay meel kaga dhacayaan qarannimada Soomaaliland dadkana waxay doorteen qolada xukuumadda maanta oo Maxamed Axmed Siyaray dadku doorteen isagu baa shaqeynaya ومن بعنا كل بعمر يروح على أكثر هل يستيرين بولي ده هل كيستيرين بعد نيم بعنا تورتي أو سحلال بعنا تورتي أو فوق كوهاوي كرسيهم سلام الله شكرا يا ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا صمصة تي في مقالة